Muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sidaad kaga maarmi lahayd keyboard-kaada oo caadiga ah markii ay cilad ku timaado. Waxaad isticmaali kartaa kan uu ku yimaado Windows 10-ka. Sidees ku soo saari kartaa kan uu ku yimaado Windows 10-ka taskbar-gan. Taskbar ayaa right click dhigi, kadib waxaad arki doontaa meesha ay qoran tahay Show Touch Keyboard Button. Ku dhufo, kadib waxaa ku soo bixi doona keyboard-ka oo halkan kaaga muuqdo. Asaga ku dhufo, kadib waxaad arki marka keyboard-kaada oo meeshan ku haysta key computer-kaada oo caadiga ahayn aad kaga maarmi karta kan asaga ayaa option badan kala leh. Dhankan waxaad arkaysaa setting-ka aad ka sixi karto haddii kan aad u baahan tahay inaad weynaysto. Inta ayaa ku dhufani, kadib meeshan ayaa imaanay. waxaa arki marka inuu ku weynaado. Haddaad u baahneen noocyo kuwan ayaa ku dhufani, kuwan waa badiyin midkii aad doonto ayaa dhufan kartaa. Dhanka kale intana setting-kii waay. Haddaad u baahan tahay meeshan waa language-ka qoraalada aad u baahan tahay meeshan. Haddaad u baahan tahay Carabiga koro inta ayaa ka keensan kartaa. Setting-ka ayaa tagi, kadib Carabi meeshas ayaa ka dooran. Dhankan kale waa setting-kii guud asaga laga saxay. Haddaad ku dhufto option badan ayaa meeshan kaaga soo bixi doona. Asaga markaan ku dhufno waxaan arki doonaa option-ada badan. Kulli waxaa arki marka meeshan dhan hadda spelling inuu on ku yahay. Highlight misspelled words hadii erey qaal ah aqardan on ku yahay asaga ayaa ku saxaya. Typing-ka hadii aad u baahan tahay asaga ayaa ku saxaya. waxyaalahan dhan wixii doonto ayaa on off dhigi kartaa. Meeshas ayaa kaaga muuqda. Marka dhanka kale waxaan ku haysanaa setting-ka waxaa kalo dhanka xiga waa microphone. Meeshan haddaad u baahan tahay inaad hadasho waa hadli, kadib waxaa ku hadasho halkan ayuu kugu qoraya toolbar-kan hadda kuu furan. Saas ayaa loo isticmaalaa. Waa inaad isticmaasho microphone. Dhanka kale waxaan ku haysanaa wixii alla waxaad koobiso halkan ay galayaan. waa meeshaada computer-kaada keyboard-kiisa wixii aad koobiso ay gali lahaayeen waa meeshan. Tusaale kale waxaa meeshan qoraal meeshan noogu qor si aan u tijaabin inuu kan shaqeynayo. qoraal meeshan qor maxaa arki inuu shaqeynayo. meeshas waxaa noogu qor marka qoraalka inuu kuu shaqeynayo. Meeshan hadda kuwan copy noo dheh si aan u aragno. copy dheh meeshan, copy, kadib kan ku dhufo marka. waxaa arki marka ereyga aad koobisi ayaa meeshan kaaga muuqda. Clipboard ayuu ku galay. wixii alla wixii koobis inta ka arki. haddaad u baahan inta ayaa ka tuuray. marka saas ayaa loo isticmaalaa badanaa kan keyboard-kan. waxyaalo badan kale waa leeyahay. haddaad u baahan tahay weligaa internet-ka ma ka raadisay waxyaalaha emoji-ga ah oo aad u baahneed computer-kaada ayuu ku imaaday uma baahnid inaad internet ka raadisay. halkaas ayaa ku dhufani, kadib waxyaalo badan ayaa meeshan ka arki. waxaa arki meeshas waxaad doonto inaad meeshan aad gashan karta. haddaad u baahan tahay emoji, haddaad u baahan tahay kan ayaa ku dhufani, wixii emoji meeshan ayaa meeshan ka arki. dhanka kale waxaa ku haystaa dad. haddaad u baahan tahay dadka meeshas ayaa ka arki. haddaad u baahan tahay waxyaalo kale qaarna ruuga kor ah intaan option ayaa haysta. waxyaalo badan ayaa meeshan soo gelin kartaa u baahan tahay. haddaad u baahan tahay kuwan kale waa baabuurta iyo kale waxyaalo badan ayaa meeshan ku haysta. haddaad u baahan tahay inaad kusoo laabatana inta ayaa ku dhufani ABC-da qoraalkii. meeshan waa kuwii aad isticmaali lahayd. badanaa keyboard-kaada computer-kaada ayaa ku haysta kan kale oo caadiga ah ma u baahnid. haddii cilad aad ku aragto kan ayaa kaga maarmi kartaa. muuqaalkan qaybtaas ayaan ku barnin sida loo isticmaalayo touch keyboard-kan oo ku yimaado Windows 10-ka. intaas ayaan kusoo gogweynaynaa. wixii aad aragtay qabta noogu reeb qaybta commentiga. haddaad ka heshay muuqaalkan like saar si aad ula socoto muuqaalada kale taxanaha ah aynu ku baranayno Windows 10. subscribe Muqdisho ICT channel, bell icon-kana riix si aad ula socoto muuqaal kasta oo aan soo gelin. intaas ayaan kusoo gogweynaynaa qaybtan.